howlgalkan ay ciidamada booliiska iyo ciidamada hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA ay ka sameeyeen qaar ka mid ah wadooyinka iyo isgoysyada degmooyinka gobolka Banaadir ayaa ahayd sidii loo adkeyn lahaa ammaanka guud ee magaalada Muqdisho waxaana goobaha ciidamada howlgallada ka wadaan kormeeray ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre isgoysyada ay sidii wadajirka ciidamada booliiska iyo ciidamada nabad sugidda ay ka sameeyeen howlgallada ayaa ahaa mid ay ku baarayeen isa socodka dadka iyo gaadiidka ay isticmaala wadooyinka taasoo loo gol leeyahay sidii looga hortagi lahaa falalka amni darada. General Mukhtar Xuseen Afrax kusimaha taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa markuu soo gabagabay howlgalka ayaa sheegay inay ciidamada goole ka gaareen howlgallada ay sameeyeen ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo hay'adda sirdoonka qaranka runtii waxay ahayd shaqo fiican nabadgelyada ka shaqeynayeen bartilmaameedyo jiray kuwana waa ku soo guuleysanay kuwana hadda ku soconaa saacada hadda aan taaganahay howlgallo kala socdo oo bartilmaameedyo argagixisada ah meelo maaragtay ay ku dhuumaaleysanayeen bartilmaameedyo ah shakhsiyaad iyo qalab ayaa hadda lagu maqan yahay waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa shacabka Soomaaliyeed oo arrintaas taageero weyn naga siiyay na caawiyay xogta ugu muhiimsan ayagana siiyo inta badan ayaga oo danahooda inaan u taaganahay og ayagana maaragtay nagu caawiyo wax kasta oo nabad qatar ayaga ku amarkay arkaan aaminsan ciidamadooda inay yihiin dad u bareeri karo inay qatarta ka hortagaan ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre oo heliyay wasiirka amniga qaranka Maxamed Abuukar Islaaw Ducaale iyo kusimaha taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed General Mukhtar Xuseen Afrax ayaa booqday dhufiisyada ay ciidamada ku leeyihiin xaafadaha miisaanka dhuxusha Dar es Salaam Ex Control Kaxda Daynile Goobta Dharkiinley Madiino Wadajir isaguna ciidamada kula dardaarmay inay noqdaan kuwa guta waajibaadka loo igmaday isla markaana bulshada Soomaaliyeed ka ciribtiraan dhibaatooyinka ay ku hayaan kuwa cadeystay daadinta dhiigga shacabka Soomaaliyeed. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa kormeerka kadib wuxuu warbaahinta qaranka kula hadlay xarunta degmo baarista ee CID-da isaguna ciidamada ku howlan sugidda ammaanka magaalada Muqdisho kula dardaarmay inay sii laabaan howlgallada lagu sugayo ammaanka guud ee magaalada. xarunta CID-da ayaan joognaa caawa iyadoo saacadu ay tahay 9 saac oo habeenimo ku dhawaad waxaan soo marnay dhammaan xaafadaha magaalada Muqdisho intooda badan miisaanka dhuxusha Dar es Salaam Ex Control Kaxda Daynile Goobta meelahaas oo dhan aan soo marnay anigoo taliyaasha ay soo tuseen iyo wasiirka sida xaaladda amniga uu yahay sida shaqeynayaan bogaadinaya shaqada ay magaalada ka hayaan aad iyo aad ayaan u dhiirigelinayaa ciidamada qalabka sida oo aan soo arkay booliis iyo nabad sugidba oo dhaxanta taagan aad ayaan ugu mahadcelinayaa dawladduna waxay ka shaqeyn doontaa in la sii dardargeliyo laguna sii caawiyo wax walba oo sii hagaajinaya xuquuqdooda halkan waxaa la igu soo tusay caawa dad shabaab ah oo la soo qabtay oo ay soo sheegeen dad shacab ah meelaha ay joogeen shacabka Soomaaliyeed waxaan mar labaad ku boorinayaa ugana mahadcelinayaa sida ay uga shaqeysaan ciidamada amniga waxaan ka codsanayaa inaad dadaalkaas aad sii badisaan aad ayay taliyaasha iyo wasiirka amniga idinkaga abaal sheegteen waxaan leeyahay shacabka haddii aan aad isugu sii dhaweyno shacabka Soomaaliyeed iyo ciidamada amniga sugaya waxay aad u dhiirigelinaysaa waxqabadka. Cabdullaahi Axmed Kulmiye warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Muqdisho.